oo diinteena kamida quraanka iyo xadiidkuba ay sheegeen maantana dad badani uu duulimaad ku yahay ama uu diidan yahay oo waxayna ogsoonahay ummadihii xijaabku ku sii dambeeyay Saudi Arabia kamid ahaa in ogeysiisyada ka akhriyaysa inay dawladdiiba ku dhiiri galinayso dadku inay faydfaytaan siiba dumarku oo la leeyahay waxaan arkay maqaal ama qaraar ka soo baxay dawladda oo ay leeyihiin askariga xataa ruux dumara maxaad u xijaaban weyda ku qabsada isaga la dabagalaya waxa si cajiib ahayd ra'iisul wasaaraha Pakistan oo shalay Sacuudiga ka soo degay isaga oo wata gabadh niqaaban oo waliba Ingiriis oo soo islaamtay arrin cajiib ah ayay ku noqotay fariin oo u diray nimanka u yimi daa'iray arrinta waxa soo horeysiin lahaa xishoodka oo halka ay ku leedahay ama ay miisaanka ku leedahay shariicadeena iyo quraanka iyo xadiidkuba sida u qadariyeen cidii doontaaba badownimaha ku sheegto ama ilbaxnimo darre ah quraankeena kariimka ah wuxuu ka waramaa habla iyo hooyooyin la mahadiyay oo mudan in lagu daydo waxa kamid ahaa banaatu Shucayb hablahi ilmo Shucayb ilaahay markuu amaanay wuxuu ku amaanay xishoodka فجاءت إحداهما تمشي على استحياء labadii hablood mid kamida baa nabi Muuse u timi iyadoo xishood ku sugan arinta wuxuu ilaahay sida gaarka ugu tilmaamaya waa jacayl ilaahay jecel yahay subhanahu wa ta'ala iyo hablaha oo ku qurux badan xishoodka shayga loo yaqaano marka waa kuwa culimadu si sharxaya sida ay u xishoonaysaa wuxuu ahaa iyadoo aan baa la daymood badan lahayn si kadaf iyo kadla aan u soconaynin nabi Muuse aan eegaynin waxyaabo badan bay si sharxaa laakiin markaynu uga soconno ummahaatun wa banaatun khalidatun fil quraan hablaha iyo hooyooyinka waraya taariikhdooda quraanku uu sheegayo waxa way xishoodka ilaahay ku amaanay subhanahu waxaan xusi lahayn xaqiiqada alxayaa sidoo nabigu sheegay calayhi salaatu wassalaam xishoodka dhabta ah asxaabtu ku yiri ala tastaxiyuna min allahi xaq alxayaa xadiidkii saxiixa miidaan ilaahay ka xishoonay xishoodka dhabta ah marka asxaabtu waxay yiraahdeen allah ka raali noqday de ilaahay waabaan ka xishoonaa walxamdulillah mahadna isaga leh marka rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam xishoodka dhabta ah waxa weeye an tahfaz ar-ra's wama wa'a wal badna wama hawa wal tadhkur al-maut wal bila xishoodka dhabta ah waxa weeye inaad ilaaliso madaxa iyo wixii uu koobsaday oo xumaanta ka ilaaliso madaxu wuxuu koobsaday maskaxdii iyo indhihii iyo dhagihii iyo carabkii iyo afkii wax badan oo wixii wax lagu fahmayo dareemayaashiya ayuu koobsaday marka waa inaad ka ilaaliso wixii xaraana ee ilaahay ka cadhaysiinaya subhanahu wa ta'ala adiga oo arintaana ay sabab kuugu tahay inaad aakhiro xusuusan tahay inaad ilaahay soo hortaagi doonto subhanahu wa ta'ala xishoodku daa'iray waxa weeye takhalluq bi akhlaaqillah ilaahay akhlaaqdiisii oo la raaciyo nabiguna calayhi salaatu wassalaam wuxuu inagu yiri xadiidkii muslim ku sugnaa takhalluqu bi akhlaaqillah ilaahay akhlaaqdiisa qaat insaanku wuxuu qurux batay wanaagsanaada marka uu akhlaaqda ilaahay qaadanayo sida daraadeed ayaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam xishoodka ilaahay uu ku sifeeyo waxa uu inna allaha hayy ilaahay uu xishood badan yahay adoonkiisana uu ka xishoodaa marka intuu gacmaha kor u qaado ya rab isagoo ducaysanayo ilaahay ducada ya aqbal inuu ku soo celiyo gacmahaasi iyagoo maran marka waa sifo alle qofka sifo ilaahay qaadanayaana mahad iyo qiimo leeyahay waxa kale rabbi uu tilmaamay quraanka dhaxdiisa inna allaha la yastahi min inna allaha yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha ilaahay kama xishooda tusaalayaasha inuu dadka siiyo marka xishoodku waa sifo uu leeyahay sidoo kale xishoodku waa sifo uu lahaa rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam nabiyullaahi maxamed asxaabtii saaxiibada u xokaynta oo ahaa nabiga
waxay leeyihin wuxuu ka xishood badnaa inan aqalkeeda ku jirta oo aan bannaankaba u soo bixin oo gashaanti ah siday u xishooto waa lodkiinaasi weeye hablaha la leeyahay waa hablo gashaanti ma ahoo asturan oo urursan waxa weeye lodkiina iyo asaagiina iyo aynigiina sida u xishooto nabigu ka xishood badnaa calayhi salaatu wasalaam xataa isagoo masalooyinka sharciga sheegaya waxaanu kari jirin xishood daraaddeed inuu afka ku ballaadhiyo maalin maalmaha ka mida ruux dumaraa u timi su-aal bay weydiinaysaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam sida looga maydhanayo dhiigga caadada ah markaa wuxuu ihi sidaa u maydho oo mara udgoon qaado oo maaragtay cadar iyo waxaa marayo sidaa samee markaa waxay tidhi oo maxaan ku sameeyaa subxaana allahi tatahri ilaahay baa xumaan ka hufana waxaan ku uhi bal isku nadiifiyo caaisha allaha ka raali noqon iyada oo kala dhex galaysa nebiga iyo ruuxa dumarka markay aragtay inuu nebigu xishooday ruuxii dumarkaabay soo qabatay dabeetana iyadaa sharax gaara sii siisay oo intaa kaga filaatay rasuulka sala allahu calayhi wasalam shayga xishoodka la idhaahdo nebigu waxa uu ku tilmaamay inuu yahay iimaanka qayb ka mid ah iimaanku waa dhowr iyo 70 ama dhowr iyo 60 qaybood waxaa ka mid ah buu nebigu walxayaau shucbatun min aliimaan xishoodku waa qayb iimaanka ka mid ah markaa qofka xishoonaya xishoodkiisa waxaa sabab ugu ah inuu iimaan leeyahay daraaddeed waxaa cajiib ahoo uu nebigu sheegay inuu yahay maqaalkan ama fariinta xishoodka la isu dardaarmayay waa dhaxalkii nebiyada إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت مقال ذي دحل قلك أها الرسول شوردان الكوديجا وها وحكم ذها قفيا وهدانت حشونين واحد أنت السماء سمالدنا وحيد هذا لنا الحشونين دقال حالي كما هيس حمان ولا كما حشوده قفك كل هديان وهين قف إيمان كيس ونكسيه shayga xishoodka la yiraahdo haduu qofka ka tago xumaantu ku faanaa waa sidaynu casrigan arkayno meelaha wax lagu baahiyay iyo gaalada dhaqankooda aynu ku arkayno nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka loo saxiixa wuxuu ku yiri ummadayda oo dhan ilaahay toobada uu ka aqbalaya cafisna uu siinaya ila almujaahiriin kuwa xumaanta ku faana ee aan xishoonin mooyaan waa qof habeenkii ilaahay waastura intuu xumaan sameeyay subaxdii buu banaanka wala soo baxayaa wuxuu leeyahay waxay waxaan sameeyay markaynu ka nimaadno quraanka iyo xadiidka a'imadii wanaagsanaa ee qiimaha badnaa ee taariikhdooda iyo tilmaantooda la yaabka ay lahayd maqaaladaha ay ka yidhaahdeen haddii aynu soo qaadano qaar ka mid ah xishoodka ay ka sheegeen imaamka la odhan jiray muxadidka la odhan jiray wahb ibn munabbah ayaa wuxuu leeyahay al-iimaanu curyaanu واللباس تقوى إيمانك قفك وقاونان كرا وحلاكين در النقنا يأسترح الشوتك والحياء ماله والحياء زينته وماله العفة حشوتك نوى إيمانك وحا قرحية إيمانك وحا حروة دور صونانت يعفيف نمضة مقالة داس وهب بن منبه بالها وحكروا لها فضيل بن عياض oo ragii xurmada iyo xishoodka iyo cibaadada lagu yaqaanay ilaahayna aad uga sii xishoon jiray 5 calaamaatin min ash-shaqaa guul darada waxa kamida buuri 5 arimood qasaawatul qalbi aw qaswatul qalb qofka qalbigiisu uu qallafo oo naxariistu ay ka tagto oo ilaahay ka cabsan waayo subxaanahu wa ta'ala wajumudul ayn iyo ishiisoo ilmadu ay ka qalasho oo marnaba ilaahay daraadii u ooyin aad baa loogu baahan yahay habeenkii intaynu cibaadaysano oo aynu khushuucno oo aynu ilaahay la gooni noqono inuu khalaaweyno inaynu alla daraadii u ooyno marka haddii qofka weligiiba aan ishiisu ilaahay daraadii u ooyin waxay tilmaamaysaa buuri inuu guul darro leeyahay waxa uu ku daray qillatul hayaa isagoo qofka xishoodkiisu yar yahay haddaad aragto buuri qof xishoodkiisu yar yahay oo aan xayaa iyo xishood lahayn waa qof guul darro leh waxa uu ku daray raqbatu fi dunya wa tuulul amal adduunyada uu qofku ka daba dhaco oo diin iyo dadnimaba uu seego aad u jecel yahay iyo yididiladii soo dheeraata waxa soo dhan waxay nagu dhiiri gelinayaan shayga xishoodka la yiraahdo iyo qiimaha uu leeyahay
وآياتك يا حديث رسولك يا آثارت علماء قبايا بدنا ولا جتريي وكل أنا وقت يقولون سامحين وهذا مهمين إن حصوصنا ما هو الطريق إلى الحياة هبلو أما دائري وضد إنهم مرينا حشوت كوامح هذول حشوت كسيدا إسلام كدحديث قيمة وياش هي حياة هي حرمها وليه هي قفكو حرمه ويالنا وضد الله مر عوامح وضد وحى علماء كشجن مركوه الرئيسة واستحضار مراقبة الله إنه قفكو dareemo inuu ilaahay eegayo subxaanahu wa tacaala raadaarkii ilaahay baa haya gaadhigaa markuu dareefarku wado wadada ay ku qoran tahay iska ilaali wadadu waa muraaqab raadaar baa ku xidhan cabirka socodka sheegaya waa lagu ganaaxi doonaa si miyir qabtuu socdaa marka kalena aad buu isaga eriyaa marka isku mid maaha qofka ilaahay qalbigiisa uu ku weyn yahay mar walba ogsoon inuu ilaahay eegayo subxaanahu wa tacaala marka inantu marka ay gurigeeda joogto iyo marka ay cidla joogto iyo marka ay gaarto iyo markay dad la joogto isha u weynay iska eegaysaa waata ilaahay marka waa marka ugu horeeya ee qofku ay tahay naftiisa inuu xusuusiyo ku barbaariyo ilaahay baa wuxuu wa huwa ma'akum ayna ma kuntum meel kasto joogtaan ilaahay wuu idin wehelinayaa biilmi waxba kama qarsoona ma yakunu min najwa thalath illa huwa rabi'uhu ولا 5 إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه صدح الدين لبه الدين إلهي بقى صدحية صدح الدين إلهي بقى أفرية وحكا يريا وحكا بضنبا وإن أغادان إنه إلهي وهلنا سبحانه وتعالى وعين الله ناظرة إلينا مركا إيش إلهي مركو قفكو أكسويها إنه إلهي سويغيو حارانكو مطلع بصدي وكحشو الله عدة لقى حشو دانا إلهي بقى سبحانه وتعالى qofku waa inuu naftiisa ka xishoodo waa inuu ummadda ka xishoodo intabana xishoodku ilaahay ka xishoonaya u horeeya wadada loo marayo waxa kamid ah mujaalasatu man yastahi dadka xishoonaya inaynu la saaxiibno oo aynu ka agdhawaan oo aynu wax la akhrisano oo aynu weheshano salafku waxay oran jireen ahyul hayaa bimujaalasati man yastahya min waxa la fariisataano xishoodka ku noolaysaa ina ka agdhawaataan dadka xishoonaya bixiyaan caaniye nabad ahaynba waa la kala qaadaa beedaan Soomaalidu cudurrada si dhib yar baa loo kala qaadi karaa afar cisho hadaad raacdo qof silan ama soo faydanaya ama aan xurmo iyo xishood lahayn xanuunkiisa wad ka qaadi kartaa laakiin qof urursan oo dhowrsoon oo adab iyo anshax leh markaad ka agdhawaato isagana waad ku dayan kartaa wadada loo marayo waxa kamid ah tadabbur kalaam Ilaahi ta'ala ilaahay hadalkiisu aad dhugato oo aad dhuuxdo oo aad dhadhamiso badankiinu tacliim badan baa leedihiino madaaris ahliyo diiniyana waa soo marteeno tafsiirka waa garanaysaa marka kol kastood ilaahay la faqdo oo aad weheshato quraanka akhridood subcisood ku celceliso waxyaabuhu ka anfacaya waxa kamid ah inaad ilaahay ka xishooto subxaanahu wa ta'ala waxa kamid ah wadada loo marayo izaalatu ma yunafi alhayaa inaad hortaada ka qaado bay'adaadi iyo meeshaad ku nooshayn aad ka qaado gurigoogana aad ka qaado naftaadana aad ka fogeyso wixii xishoodka ka hor imanaya waa sida maanta dhibka ay leedahay teknolojiyada khabiitha qalabkan wax lagu baahiyo aadka u dhibka badan internetka iyo TV-ga iyo mobile-ka aynu haysano wax wal oo xishood la'aan ah waa inaad ka durkisaa hadduu indhahaagu ku dhacaan iyo hadduu sawirkiisu kaa soo horbaxo iyo inaad ku seef garaysato intaba waa inaad aad uga fogeysaa waxyaabaha kaa caawin kara weeye wadada yarita weyn bay kugu dartaa haddaad maanta in yaroo xishood darraa fudaysato goor dhow ay kula sii durkaysaa meel fog bay kula gaari kartaa oo shaydaanku uu kaa faa'iidaysto marka naftiina iyo nafteenna iyo ehelkeenna iyo asxaabteenna intaba wax kasta oo xishoodka ka horjeeda waa inaanu ka durkino tusaalayaasha wax waliba tusaalaha ayaa lagu fahmaa oo lagu dayan karaa haddii aynu u noqono tusaalayaashii saxaabada iyo dadkii saalixiinta ahaa ay u lahaayeen xishoodka nabi maxamed waynu soo aragnay calayhi salaatu wasalaam ilaahayna uga markhaati kacay xishoodka ina dalikum kaana yu'di an-nabiyya fayastaxyi minkum nabigu idinka xishoonayaa
waxyaabaha ku samaynina baa la yidhi arrimaha qur-aanku uu sheegayo gurigiisaa qola fadhiisatayoo wuu ku casuumay nebiguyo wuxuu ka xishooday inuu idhaahdo xaasku waa aroosoo waan isku hadhaynaaye bal kala dareera marka iyaguna way iska sii weheshadeen gurigii nebiga ilaahay baa qur-aan soo dejiye uu leeyahay guriga ha laga dareero ha loo fududeeyo nebigu wuu idinka xishoonaya xishoodkiisii baa ilaahay ka markhaati kacay sidaasuu ku rabeeyey xaasaskiisii iyo ubadkiisii iyo asxaabtiisii caaisha allah ka raali noqdo inan da'yar baahay mustawihiinnan oo kale ama lodkiinnan oo kale ahayd xagga da'da waa 18 jir buu nebigu kaga dhintay calayhi salaatu wasalaam waxay leedahay markuu rasuulku dhintay sala allahu calayhi wasalam gurigayga lagu xabaalay xijaabkayga waan iska dhigan jiray habeenkii haddana markii aabbahay lagu xabaalay abubakar sidiiq iyadana waan iska dhigan jiro dee qayb bay seexan jirtay guriga waxaanaan odhan jiray waa aabbaha iyo saygaagii laakiin markii cumar ibnu khadaab lagu aasay waan iska xijaabto habeenkii xijaabkan ku seexan jiray maadaamuu ku soo biiray cumar oo ka ajnabiya iska daa adduunka ee xataa filmamaat geerida ayaad arkaysaa inuu xishoodkii ay tixgelinayaan sidaasoo kale inantii qaaliga ahayd baa iyaduna la mid ahayd faadima bintu rasuul markii ay xanuunsanaysay xanuunkii ay ku dhiman doonto ayaa maalin maalmaha ka mida waxa soo booqatoo u timi asmaa bintu cumays ayaa u timi xaaskii abubakar way tasliyeysay ama way dejiso way samirsiisay waxay aragtay iyadoo yaro baxsan faadimo oo fikiraysa markaa waxay tihi faadimoy maxaa kugu wacan fikirka waxa igu wacan bay tihi waxaan ka fikirayaa goordhow markay raggu naxashka igu qaadaan kolley ilgeeriyaad baan leeyahay jidhkaygaa muuqanaya macnaha dee kolley mara way saarantao go-baa la saari jiray naxashka lagu qaadi jirayna wuxuu ahaa kan ambalaaska saaran oo kale oo aan sariir ahayn marka jidhkaygaa borigiisan kore ama jismigiisaa kore raggu uu arkayo markay raggu i qaadaan asaan kasii warwarsana asmaa bintu cumays xal bay keentay iyadoo xishoodkeeda u tixgelisayoo waxay tidhi waxaan ku soo arkay berigaan xabashida u hijroonnay bahal naxashahoo sida sariirtoo kale u samaysanoo rukumo dhaadheer leh oo jidhkaagu ku dhex qarsoomayo kiibay soo samaysay way u soo dhigtay dabaytana waxay tidhi allaha ku asturee waad i asturtay bal hadda waxaad ka fikiraysaa innaguna innaga oo nool oo soo jeedna ayaa aynu faydfaydanaynaa xurmadii iyo dee iska daciiftay bani aadamkii iyaduna geerida dabadeeda ayay ka fikiraysaa xishoodkii inuu sidii usii ahaado waa dhaqanuu nebigu ku rabeeyey calayhi salaatu wasalaam saxaabada allaha ka raali noqdo cusmaan ibnu cafaan waxaynu ogsoonnahay markuu soo baxay halkaa uu ka soo baxay rasuulku sala allahu calayh wasalam iyadoo jilibkiisu sidaa u muuqdo ayuu qariyey markii la weydiiyeyna wuxuu hi alaa astaxii min rajulin tastaxiihi lmalaa'ika waan ka xishoonaya nin malaa'igta ilaahay ay ka xishooto iska daa makhluuq kaloo malaa'igtii ilaahay ayaa ka xishoonaysa ibnu cabbaas waxay leeyihiin saaxiibadii marka uu had iyo jeer maydhanayo weliba meelahan xamaamadan ragga uu ku wada maydhee dhaadheer waxa uu isagu iska qabi jiray dharkiisa markaa wuxuu odhan jiray anugu waan xishoonayaa iska bixin maayo qamiiskayga qamiiskaasu ku maydhan jiray wax cajiiba weeye iyadoo dadka kale ay baryaha dhigan jireen waxa uu leeyahay anas ibnu maalik waxaan arki jiray abi muusa alashcari habeenkii surwaalku iskaga seexan jiray laa tankashifa cawratu si aanay cawradiisu u muuqanin waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan da'yareey rag iyo dumarba asxaabtii iyo ehelkii nebiga calayhi salaatu wasalaam xishoodku qiimaha uu leeyahay marka aynu ku dadaalno inaniba inantay ka xishood badan tahay ayaa looga hanwan yihi hadday tahay mucallimka iyo hadday tahay waalidka iyo hadday tahay kii guursan lahaaba waxaa laga yaabaa ragga ka u daciifsan ama uba liitaa gaabsiga iska soo dhaafiyo sinadoo maalintu guur doono wuxuu odhanayaa ragow waxay ii doontaa inaan aado xishaad badan oo tafsiirka akhriyaysa oo qur-aanka taqaana haddii la idhaahdo war adiguba sidaa ma ihide maxaad tan ku doonaysaa maya waxaan doonayaa buuhi ayuu odhanayaa carruurtayda mid hooyo wanaagsan oo xishoota ayaan doonaya ilaa raasamaal buu qofkii rabaa waa waxyaabaha qofka qiimo uu ku yeeshay gaaliya islaamba lagu tixgeliyo xishoodkiiyo dhowrsoonaanta intaa waxaan uga soo gudbi lahaa shayga loo yaqaano xijaabka
iyo faa'iidooyinka uu leeyahay malaha dee shuruudihiisa waxaan filayaa inaa casharo badan ku qaadateen faa'iidooyinka xijaabka awalan alxijaabu daaca xijaabka aad gashantihiin maaha dhaqan carbeed sida yidhaahdaan dadka had iyo jeer weerarka ku ah casrigan aynu joogno oo waxay yidhaahdaan innaga dhaqankeennii soomaaliga ahaa waa inay inantu garays xidhato inaaska dhinac ka banayso timaha tidcanna sii dayso laakiin dhaqan carbeed weeyaan bay yidhaahdeen taasina waxa weeyaan waa been ay sheegeen iyo iblays oo ka dhex hadlayaan xijaabku waa daaca ilaahay baynu ku adeecaynaa subxaana wa tacaala aayadaha ina faraya soomkiiyo salaadunba isagana ina faray marka ilaahay wax farana rag iyo dumarba cala ara'si waalcayn qofku wuxuu leeyahy ilaahay ka aqbalay wamaa kaana limuminin walaa muminatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amri rabbi iyo rasuul hadday wax go-aamiyaan doorasho ma leh rag iyo dumar qofka muminka ahi waxa uu leeyahay ilaahay aqbalay buu leeyahay rasuulkana aqbalay marka ilaahay baynu ku adeecaynaa wa aydan alxijaabu iimaan xijaabku waa iimaan oo qofka markuu xijaaban yahay waxay sheegaysaa inuu yahay qof mu'mina oo iimaankiisaasi uu faray xijaabka oo rabbi ku adeecaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay fariin buu soo faro waxa uu leeyahay yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wa banaatika wa nisaa'i lmu'miniin yudniina calayhina min jalaabiibihina wa nisaa'i lmu'miniin baa la leeyahay fariinta waxaad gaadhsiisaa ubadkaaga iyo ooryahaaga iyo dumarka alla yaqaanka ah marka ciddii ilaahay rumaysani amarkaa way qaadata waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahun fariintaa gaadhsii dadka iimaanka leh ee dhadiga ah si cawradooda ay u asturaan u xijaabtaan alxijaabu طahaaraة اlqalb xijaabku qalbigu waxyaabaha uu nadiifta ku noqdo weeye wuxuu sheegayaa inuu qalbigu nadiif yahay buu sheegaya oo qalbi silan oo iblaysku uu ku leeyahay kaalin iyo meel uu galo ma aha qofka xijaabani ilaahay baa saa caddeeyo markuu xijaabkii ka soo hadlay baa wuxuu uhi dalikum adharu liquluubikum wa quluubihin inay dumarkiisaa u xijaabtaan oo min waraa'i alxijaab kala hadashaan iyagoo asturan ayaa qalbigiinana rago u fiican dumarkana qalbigooda u fiican qalbigu ilaahay sheegaya qalbigu qofka hadduu ka wasakhoobo ma xishoodo xumaantana wuu ku faanaa sa aynu maanta arkayno waxa ay dad badani ku faanayaan ay ilbaxnimo u arkaan inay cawradooda iyo ceebtooda soo bandhigaan xijaabku faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid a waa calaamatu cifa waa calaamad sheegaysa qofkan inuu dhowrsoon yahay oo aanu xumaan iyo ilaaqtoona diyaaru ahayn waa faa'iidooyinkiisay ka mid tahy sidaa daraaddeed waa lagu tixgelinayaa ka xuna faajirka a laftiisa uu ku tixgelinayaa sidaa daraaddeed baa markuu ilaahay xijaabka soo faray wuxuu ku sababeeyey dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayna arrintaasi waxay u dhowi badan tahay haddii la arko qofkoo xijaaban inaan la dhibin ee qofkii sidaa u eegu idhaahdo wallaahi taasi waa asturan tahayoo tii aad dhinaca ka raaci lahayd ama aad ilaaqan lahayd ma aha sidaa daraaddeed uu iskaga baydhayaa qofkuu ku tixgelinayaa waalxijaabu ziina xijaabku waa qurux sideedaba qaawanaantuna waa ceeb iyo foolxumo asturnaantuna waa qurux ilaahay baa caddeeya waxa uhi yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid ilmo bani aadamow dhammaantiin marka ilaahay u cibaadaysanaysaan quruxdiina qaata waa rag iyo dumarkii labadaba markaa muu odhan ilaahay dharkiina qaata laakiin dharka wixii ka dhalanaya ayuu sheegay oo quruxdiina qaata marka qofku hadduu asturan yahay wuu qurux badan yahay hadduu qaawan yahayna wuu foolxun yahay sidaa daraaddeed baa ayaa waxaa la idhaahdaa xumaysta baa la idhaha xumaysta xumaystu waxa weeyaan cawrada sii hoosaysa waar qofka xumaystiisa hala asturo marka haddii qof waa halkaa ka soo baxo isagoo aan waxba gashanayn waxaa la war xumaystiisa hala asturo waa qofka naftiisa iyo ummadaba wixii xumaynaya laga naxayay haddii laakiin uu asturan yahay waxa uu yahay qof ishu ay qabanayso oo qurux leh soomaalidii hore waxay odhan jireen rag wax qarsoon laga raac macnaha waxa weeyaan gabadh qarsoon unbuu ragga wanaagsani sidaa usii eegayaa uu jecel yahay haddii laakiin intiiba bannaanka ay dhigto
horay baa laga arko wax kale oo loogu sii hamoodaa ma jira bay leeyihin walxijaabu aydan sixa xijaabku sidoo kale waa caafimaad daraasadaha imika la sameeyey ee gaaladuba ay sameeyeen waxaa lagu ogaaday qofku marka uu jidhkiisu asturan yahay inuu ka badbaadi karo saraطaan aljild cudurka dilaaga ah oo ah kansarka maqaarka ku dhaca oo shucaaca qoraxda qaybo ka mid ay keenaan ama markuu qofku had iyo jeer aada u badiyo waa idinka arkay oo gaalada waxyaabaha ilaahay uu ku salliday bay ka mid tahay kansarka maqaarka isagoo aan ku dhicin dumarka muslimaadka ah xijaaban marar badan bay qoraxda isu dhigaan xeebaha ayay iyagoo qaawan jiifsadaan marka maqaarkooda kansar baa ku dhaca waxyaabuhu xijaabku ka dawan yahay ayaa ay ka mid tahay sida la caddeeyey waxaa daraasad sameeyey niman maraykan ah oo ku nool magaalada loo yaqaano new york had iyo jeer wax badan bay baarbaaraan wax iyaga dhaqankooda ah iyo waxyaabo ummadaha kale dhaqankooda ada si ay bal meeshaa jawaab uga helaan arrintaa daraasadda way naga horeeyaan aada iyo aad baana isku dayaan inay bal waxun ka faa'iidaan marka waxay arkeen dadkan muslimiinta dhadigoodu inuu xijaaban yahay kadibna waxay dhahaan xijaabkan horta maxaa faa'iido ku jira marka way dabagaleen siyaabaha ay u dabagaleen waxaa ka mid ah waxay kabrad daba qaateen inaan aan xijaabnayn oo dharkoodii caadiga ahaa ee qaawanaa gashan meel shaarica bay martay waddo dheer bay martay iyadoo isna qurxisay jidhkeediina bandhigtay waxay arkeen 10 jeer in loo banbaxay oo mid ilaaqa iyo mid u iljabiya iyo mid hadal ku yidhaahda midiba wax ka sheegay ilaa 10 jeer ayaa inta shaarica sii socotay inanta aflagaada loo geystay maalinteediiba iyada qudhigeedii u soo xijaabeen saacadeedii dariiqiina way soo mariyeen inantii xijaabnayd cidiba lama hadalba haddii taa shalay iyada laftigeedii shalayto 10 jeer la ilaaqay maalintii dambe cidi lama hadal sidaa daraaddeed baa waxay yidhaahdeen waxaa noo caddaatay xijaabku inuu sababu yahay habluhu inay ka badbaadaan dhibaatada dadka xun iyo dhalinyaradii ku xadgudbi lahaa markay sii daraaseeyeen waxay dhahaan waxa kaloonu ogaanay xijaabku wuxuu yaraynayaa takaaliifa tajamul waxa la yidhaahdaa isqurxinta iyo iska shaqaynta oo ruuxii dumarka ahayd lacag badani uu kaga baxdo iyadana wuu yaraynayaa had iyo jeer dumarka jidhkooda bandhiga maxay wejiga marinayaan maxay timaha marinayaan maxay afka marinayaan meel walba waxbay soo mariyaan lacag aad u badanina waa kaga baxda waliba waxay yidhaahdaan ummaddan afrikaanka la yidhaahda timaha adag kharashka ugu badani maha ka cunada waxa weeyaan ka isqurxinta iyo tajamulka bay yidhaahdeen marka ruuxa dumarkii markay iska asturan tahay kharashkaasi kuma badnee wuu ku yar yahay bay yidhahdeen waxa afraadoo ay tilmaameen arrintii caafimaadka iyo arrintii dhib yaraanta iyo arrintii kharash yaraanta waxay ku dareen oo shanaad xijaabku wuxuu ka dawan yahay bay yidhahdeen waxa loo yaqaano qalaqa ama istrastiga warwarka iyo walbahaarka ku yimaada ruuxa dumarka ah wuu ka yareeyaa sababtu uga yaraynayaa waxa weeyaan marka ay ruuxa dumarka ahi qaawan tahay had iyo jeer waxay ka fikiraysaa wallaahi hebelkaasi ishiisa soo jiido hebelkaasi si wanaagsan kuumu eegin maanta malaha laguma jeclaanin malaha kaasaa ku nacay isha raggunbay saa u eegaysaa oo ay ka warwarsan tahay laakiin kolkay asturan tahay mushkiladaasi ma haysato istrasiga iyo qulubka iyo qalaqa warwarkaa ku imanayana way ka nasanaysaa waa qofkaa iska gaashaaman ee iska shuurinaysa ee isku kalsoon marka waxyaabahaasina waa waxyaabaha ummadaha shisheeyaba ay ka markhaati kaceen fadliga uu leeyahay xijaab walfadlu maa shahidat bihi alacdaa baa la yidhaha fadliga ugu weynna waa ka cadowga uu kaaga markhaati kaco waxaa intaa da'yaray sii wehelinaya xijaabku shuruuduu leeyihin oo waa ogsoon tihiin shuruudihiisa kolley mucallimiinta idiin dhigay maadada tarbiyadaan filaya inaad ku dhigateen shuruudaha in la ilaaliya waa lagama maarmaan haddaan si degdega u dul maroon idinsii xusuusiyo shuruudaha waxaa ka mid ah inuu xijaabku jidhkao dhan wada qarinayo marka laga reebo wejiga iyo labada gacmood ee qofku uu ka faraxalanayo waa xijaabna waxaa la yidhaahdaa maa yuqadi lbadan min alqarni ila alqadam waa shayga astura jidhka tin iyo cidhib alqarnu walqadam waa tin iyo cidhib
halka u sarreysa ilaa halka u hooseysa shayga astura ayaa xijaab la yidhaahdaa waxaa shuruudaha ka mida inuu yahay shay fadfaada oo aan qofka ku dhegsanayn shuruudahanina waa mid ay wadaagayaan ragga iyo dumarku oo haddii jidhkao dhan ay gabadhii qarinayso ninkiina waa inuu cawradiisa wada qariyaa shardiga koobaad wey shardiga labaadna waa inuu ka debacsan yahay waxaa la yidhaahdo moodada hadda imika ama stylekan wax loo tasho in la isku dhajiyo oo inabaduna ay isku dhajiyaan dharka habluhuna isku dhajiyaan ka fogaada waa cawradii oo lasoo bandhigayo nebigu wuxuu sheegay xadiidkaa marar badan maqasheen nisaaun kaasiyaatun caariyaat waa kuwii aan jannada udgoonkeeda helayn waa dumar wax xidhan haddana qaawan siyaabaha u qaawan yihin waxaa ka mid ah inay maradii isku dhajiso markaasaa xubnaheedii inayba dhinac u muuqanaysaa ama cabaayad ha ahaato ama toob ha ahaato qofkii oo maradii isku dhajiya taasibuu ayuu ku mutaysanayaa inuu jannada ka fogaado oo ku waayo xijaabka shuruudihiisa waxaa ka mida inuu haqiin yahay oo hadduu noqdo wax shafaaf ah oo jidhkii muujinaya sax ma aha sida diracan khafiifka ah ee dadka qaarkood ay qaataan ruuxa dumarkii markay gurigeeda iyo joogto ninkeeda la joogto waa qaadan kartaa laakiin inuu banaanka qofkii ula baxa waa qalad raggiina sidoo kale iyagana uma banaana cawradooda inay soo bandhigaan oo jidhkii la arko waa inuu yahay waa inaanu ahayn baa la mid udgoon leh oo waxa udgoonka la yidhaahdo inay ruuxa dumarkii banaanka ula baxdo iyadoo jin iyo insiba sanka lala raacayo waxay ku mutaysan kartaa dhibaato soo gaadha nafteeda oo la dhibo iyo mid soo gaadha ruuxdeeda oo jinku uu raaco hadiyo jeer jimanka aragteena hablaha iyo dumarka raaca sababuhu u raaco waxaa ka mida udgoonka ay banaanka ula baxayso ilaan damaca raggoo kaleu isaguna leeyahayoo uu soo hunguraynayaa dumarkii nebigu wuxuu diiday calayhi salaatu wasalaam ruux dumara oo cadar soo xidhatay cadar isku soo shubtay inay masjidka timaado cishaa'iga waxaa kaluu ku tilmaamayba inay tahay zaniya waa nin aada u cajiib badan inay sinaysanaysu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam shuruudihiisa waxaa ka mida inaanay dharkaa ay ruuxa dumari gashan tahay u egaanin dumarka gaalada dharkoodii man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum rasuulku wuxuu leeyay sala allahu calayh wasalam qofka qole isu egeysiiyaa iyaga ayuu ka mid yahay dharkaa ay gashan tahay waa inaanu ka ragga u egaanin wuu nacdalay nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarka gashanaya ragga dharkooda iyo ragga gashanaya dumarka dharkooda ma jiro waxa la yidhaahdo wariyaa naaya oo ragguna uu gashanayo dumarkuna uu gashanayo ka midaysan yihin way ku kala duwan yihiin waa inaanu ahayn thawbu shuhra maro mulfit lilandaar isha soo jiidanaysa oo qofku markuu sidaa u eego dee ummadoo dhami ay wada eegeyso dadka laga soo dhex saarayo qofkan la xaman karo wax laga sheegi karo taasina wuu iska ilaalinayaa qofku maradaasi waa inaan ahayn mid dusha bilic ku leh midabkay doonto ha ahaato laakiin waa inaanay dhalaan iyo werwad ay indhaha soo jiidanayso waa inaanay lahayn marka taana waan baraarujin lahayn sida xijaabkiinaasi uu yahay maasha allah aad baa u fiican tihiin marka waa inaad ka dhegaysataan mucalimiintu marka ay idinkala talinayaan iyo waalidkuba wixii qalloocan ee la xidhiidha aadaabta iyo akhlaaqda waxaan arkayay jaamacadaha ingiriiska waxay ka mamnuuceen iyo sekondariyadaba inay inantu soo marsato mayakbab bahalkan la yidhaahdo muxuu maykabka ma karama magaciise maykabka bahalkaa la yidhaahdo inay soo marsato iyo afka yaraa la casaysanaya marka hadday dhacdo inay inantu soo marsato bahalkaa la isku casaynayo afka wejiga la marmarinayo iyo kaa afka la marinayo waxay odhanaya sooray may ahayn meeshu aroose waxay ahayd goob waxbarasho marka raalli naga ahaw markaad waxaa iska soo biiso ayuunbaad soo noqon kartaa waa arrin lagu soo celinaya inantii waxbarasho goobtii waxbarasho ayaa laga soo celinaya marka taasina waxay la xidhiidhaa aadaabta waxbarashada qofkii waa inuu ku hawlanaadaa aqoonta oo hamuun u yeeshaa oo aanu ku hawlanaanin naftiisa iyo siduu isu dhisi lahaa iyo siduu dad u soo jiidan lahaa waxyaabaha ay ka hadlaan waxaa ka mid a kala saaridda hablaha iyo inamada iyaga oo ka warramaya waxay idhahdeen wiilashiiyo gabdhuhu markay wax wada dhigtaan waxaa la ogaaday inay inantuna ku hawlan tahay inankaa inay iska dhisto inankuna wuxuu ku hawlan yahay inantaa inuu iska dhiso
marka hamigii uu qofkuna ku jeedin lahaa waxbarashada iyo hamuuntii uu qabi lahaa xagga lamaanahan kale uu eegaya sidaa daraaddeed laabina laba ula bayna waa daraasadaha gaaladu sameeyeen laabin laba ula qofka bani aadamka ama qofkan kale uu eegaya ku hawlanaanaya oo iska dhisaya ama waxbarashadu ku hawlanaanaya inaguna waxaynu rabnaa bay yiraahdeen inuu qofku jeclaado oo hamuun uu qabo oo uu ku hawlanaado waxbarashada marka taasina waxay ku fiican tahay bay yiraahdeen waxbarashadu in la kala saaro wiilasha iyo hablaha sida ay sameeyeen maamulka dugsiga Allah barakeeyo idinkana Allah idin fududeeyo waxaynu markaa ku soo ururinaynaa daayaray la hayata biduni hayaa xishood la'aan ma jirto wax la yiraahdo noloshu waxay ku salaysan tahay xishoodka kuna qurux badan tahay qiimana uu ku leeyahay qofku haduu yahay gurigiisa madrasadiisa iyo shaariciisa intaba uu ka qurux badan yahay ilmaha xishoonaya markuu shaarica iyo madrasada u soo baxo ilmaha kale uu ka qurux badan yahay cid waliba way jeclaanaysaa marka barakallahu fiikum aad baan idinku jecelahay asturnaanta iyo xishoodka iyo aadaabta iyo dhageysiga fiican muujiseen waana idinku ducaynaynaa waxana la idinka doonayaa in qowlkiina iyo qalabkiina labaduba uu dacwad fidiyo qowlkiinuna dacwad ha fidiyo oo dadka daayarta ah ee lodkiina waaniya oo wanaaga haysataan ku waaniya muuqaalkiinuna dacwad ha noqdo oo qofka muslimka maqaalkiisa iyo hadalkiisu intuu wax saxo in la eg ama ka badan buu ficilkiisuna wax saxa marka qowlkaaga iyo ficilkaagu is waafaqsan yahay ayaad ummadda tusaale u noqon kartaa tilmaamina kartaa laguna dayan karaa marka daayar badan oo lodkiina ama waxbarashaha ku jireen ama suuqa ha joogeen ama jaar ha ahaadeen ama ehelka ha ahaadeen ama mass media haba kala xidhiidh oo waxaynu isku ognahay in noqotaan saalixaatin muslihaat kuwa naftoodana u wanaagsan ummadana wanaajiya aqoonta macnaheeduna waaba intaaba wixii aad baratay inaad naftaadana uga faa'iideyso ummadana uga faa'iideyso waana idin ducaynaya aqoontana Allah idin sakhiro iimaanka iyo xishoodkana Allah inoo wada adkeeyo جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته